kusoo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijka xusuus reeb oo had iyo jeer aad uga barateen inaanu kaga hadalno waxyaabihii ugu waaweynaa ama ay noola muuqatay in lagama maarmaanka ay tahay in la isxasuusiye ka dhacay geeska Afrika ama arlada Soomaalidu ay degto iyo adduunyada kaleba anagoo had iyo jeer u yeedhana odayaal aqoon-yahano iyo dad kale oo waaya arag u ah dhacdooyinka ay Soomaalidu xiisayn karto. barnaamijkan waxaa marti noogu ah nin ka duwan kolleyba marka dhinac uga eegto raggii hore waxyaalaha badan aanu ka wareysanay waxa weeyaan Dr. Cusmaan Sheekh Axmed Nuur oo ka mid ah ragga ugu waaya aragsan markaad eegto dhaqaalaha adduunyada aqoon ahaan iyo shaqo ahaanba oo in badan ka soo shaqeeyay meelo kala duwan oo adduunyada ka mid ah oo aanu idinka sheekayn doono si meelaha uu soo maray iyo waaya aragnimadiisa. Dr. Cusmaan Sheekh Axmed Nuur waxa uu ku dhashay magaalada Wajaale waaga malaha laanta curdinka iyo ayaa la oran jiray magacyo kale lahayd iyo garoonka iyo baa la oran jiray. Gabiley ayuu dugsiga hoose ka galay, Amuud ayuu ka galay dugsiga dhexe, Sheekh ayuu dabeedna ka baxay dugsiga sare ama secondary schoolka. Miami University jaamacadda la yiraahdo ku taalo wadanka Mareykanka ayaa loo diray labadii shahaadadood ama labadii digriye ugu horeeyay oo midna ay ganacsiga ahayd midna dhaqaale ahayd halkaas uu ka qaatay. dabeedna University of Carolina mid la yiraahdo oo ku taalo wadanka Mareykanka ayuu wuxuu ka qaatay culumta sare ee PhD da loo yaqaano oo uu ku qaatay dhaqaalaha adduunka. waxa kale oo uu galay jaamacadda ugu caansan wadanka Mareykanka iyo adduunyada ee Harvard University la yiraahdo oo iyadana uu ka bartay culum kale oo sii dheeraad oo taa ka weyn. muddo 22 sanadood ayuu wuxuu ka shaqeynayay banka adduunka ee World Bank loo yaqaano oo ah halka lacagta ama shilinka adduunyada laga maamulo ee waliba marka dhinac ka eegto had iyo jeer aad maqashaan banka adduunka caawiyay ama baan adduunyadu leedahay baa jira. wuu inooga sheekayn doonaa in ka badan 30 wadan oo adduunyada ka tirsan ayuu Cusmaan ka soo shaqeeyay oo u badan dalalka soo koreeya kuwa loo yaqaano oo madax ka soo noqday qaarna uu qorshaha horumarinta dhaqaalahooda muddo dheer ka soo shaqeynayay. Cusmaan hawlahaasi imika waa uu ka soo baxay meelo kalena uu ka shaqeeyay oo ay ka mid yihiin Sacuudi Arabiya oo jaamacad gaar ah oo King Abdallah la yiraahdo oo si gooniya iyadana cilmiyada ama culum looga baaro wadanka Sacuudi Arabiya sidii dhaqaalihiisa iyo arrimihiisu ay u sii jiri lahaayeen ayuu iyana muddo ka shaqeeyay. Sacuudiga la fahantiisa la taliyo u ahaa xagga dhaqaalaha ah marka la eego 1979 ilaa 83 ma doonayo inaan idinku raajiyo oo aan adtirahaan war malaha isaga diktoorka hawlihiisiiba dhameeyay waan idin soo daynayaa. Cusmaan su'aasha ugu horeysan weydiinaya waxa weeye Cusmaan Wajaale goorma kuugu dambeysay horta? wiigii hore muddo intee leeg bad ka maqnayd ilaa markaad ku dhalatay intii ka dambeysayna? wallahi dhowr jeer baan tagay Wajaale fasaxyaan u tagay laakiin joog xusuusta ugu weynay waxay ahayd 65kii markaan ka tagay xamar tagay oo scholarship raadinayay ayaa ugu dambeysay waxay ahayd markaa waagii la baabiyay Soomaaliya markii la baabiyay dagaalkii hore 64 dagaalka dhacay. maalmihii ugu dambeysay aad tagtay iyo maalinta kuugu dambeysay markaad aragtay labada aragtiyood ee aad kala qaadatay maxay ahaayeen? horta maalinta u dambeysay 65kii baaba bay ahayd. صح. xusuustaydu se waxay dul saaran tahay siday ahaan jirtay marka aad banka aragto roobku da'o beeruhu baxaan eed carpet masala moodo quruxda ee cawsha waxaan xusuusanahay cawsho meelaha yaacda waliba qarka shishe oo doogu ku qarinayo
berigan dhaweydin tagay dhowr cisho wiigii hore anigoo markaan ku dhowahay in bankii arkay xiise macaani hayo in magaaladii galay waxay tahitaan moodayay maaha dadku waxay ugu yidhaahdeen togo jaale horey u martay bacd mushtari oo dhan baa isku tegey lacagtii baa taalla meel ka fool xun markaan tegey maan arag runta haddaad doonayso waxa weeye daaraa la dhisay okay halkan iyo halkaa sandaqado dariiqyadii xataa xidhay toggii quruxda badnaayee labada qar kale mari jiray biyuhu mari jireen dow ka garab baxay oo lagu xashiis lagu guray iyo baco oo bacdii dhinac walba taalo ya waxaan ku noqday yani aan isiriid meeshaan niyada ku haystay ma aha ee doonaysay inaad aragto doonaya inaad arko mar labaad waxay lahaydoo kale ban weyn oo loo aada iyo aada qiimo weyn ugu leh reer somaliland ama caanka ah dhinaca soomaalida oo la yidhaaho banka togo jaale oo mashaariic badan muddo dheer marna ruushku isku dayey inuu wax weyn ka sameeyo markii dambena maraykanku wax ka beeri jiray markaan aniga lafteydu tegey dhawaanahan waxaan arkay qolo ciidamada ah ayaa hadhuudh iyo wax meelaha qaar ka beerata laakiin bankii intiisa badani sidii laga filanayay maaha oo waxaan filayaa haddii iminka malaha hawl la geliyo in somaliland ay kaga maarmi lahayd wax badan oo ay xagga dhaqaalaha ama cuntada uga baahantay sead ku aragtay bankaa iyo beerihii kale la qodan jiray ama kuwiiniiba hagaag ma loo qotaa oo sidii hore ma yihiin maya shayga maraa waaxid aada looga xumaan karaa ee inagu habboon inaynu bedelaa waxa weeye cuntadii aynu inagu soo saaran jiray iyaynu ka tagnay waxa la cunaa waa bariis dibadda laga keeno nafaqo lahayn waa baasto waa daqiiq wixii grainska la odhan jiray midhaha ah aynu beeran jiray oo imika adduunka usoo noqonayay leeyihin waa health food iyaynu ka tagnay ya ummadi haddii ay ku tiirsanaato un waxay dibadda ka keento mushkilad kastaa dhici karta marka ugu yaraan waynu samayn karnaa togo jaaliya meelo kaloo lamida inaynu cuntadeena ka World Banku horta waa baan dowladaha adduunku wada leeyihiin dowlad waliba qayb bay ku leedahay intii taraankeedu tahay ama dhaqaalaheegu leegyahay iyay qayb ku leedahay marka ma lacag baa la dhigtaa lacag baa la dhigtaa waxay leeyihiin capital ilaa haddii xusuustaydu sax tahay 160 bilyan capital oo dowlad waliba bandhigto capitalkaasi halkaasuu yaallaa ya laakiin lacagta ay amaahinayaan si kale usoo helaan oo lafahaantoodu way soo amahdaan markaa dowladaha baanka iskale iyaa u taliya siyaasadiisa iyo siduu u shaqaynayo waa say u kala xoog weyn yihiin oo inta xisada ugu weyn leh yaa talada badankeeda yeelata sababta loo sameeyey maxay ahayd markii dagaalkii adduunka ee labaad yurub burburtay yaa la yidhi yurub dib loo dhiso dabeetana baankanaa la sameeyey oo la odhan jiray dibudhisidda baanka caalamiga dibudhisidda iyo horumarista markaa kelmadda quwadda saarani dibudhiskaasay ahayd markaa yurubbaa si aada loo caawiyey tii markay dhammaatay iyaa wadanadii caalami thaalidkii xorriyaddoodii soo helayeen indiya halkan vietnam waxaan markii dambena africa markaasaa loo soo weecday duwalkan caalami thaalidka ah oo kelmaddii development horumarista iyaa xoog yeelatay markaa saasuu ku soo baxay muddada dheer ee aad ka shaqaynaysay ee 22 sanadooda jagooyinkii kala duwanaa aad ka soo qabatay horta yaa ku qoray sideed shaqada ku heshay wallahi dee waxa weeyaan horta waa fursad ilaahay ku siiya oo bini aadamku dadaal inkastaba ay yeeshee waa meeshii ilaahay kuu furo
mu'ahilaadkii aqoonteedii iyo waxeegii dee waan lahaa laakiin kolley barashay u baahan tahay sacuudiga markaan joogeen ka ahaa advisor dowladda sacuudiga oo mashaariic waaweyn aanu samayn jirnay in fact mashaariicdan anugu mas-uulka ka ahaa balaayiin bay ahaayeen oo jubayl iyo yumbuc iyo magaalooyinka waaweyn markii la dhisayey iyaanu anagu evaluate garaynay aniyo 4 nin oo kale oo experts oo maraykan laga soo qaatay lajnad ahaan aanu samayn jirnay world bankuna advisories bay noo ahaayeen oo consultant annaga lacagtaba ka bixin jiray oo dowladaha yaryarna iyagaa bilaash ku siiya talada dowladaha lacagta haystana lacag bay ka qaateen si ay tala u siiyaan marka world bank way nala talin jireen qoladii baanu haddaba world bank qoladii baanu halkaa isku baranay madaxda hay'adda world banka dabeetana sacuudiga inta maraykanka inta halkaas aan bilaabay shaqada saasaad markaa ku gashay mashruucii ugu weynaa ee intaad hawshaa haysay aad madaxda ka noqotay amaad wax ka maamushay iyo lacagtii ugu badnayd aad maamushay intee leekay allahuma salli calaa maxamed laba meelood world banka wixiisu dee waddan qura mar qura balaayiin lama wada siin karo mashruucii waa 100 milyuun waa kan waxase u weynayd sacuudiga markaan joogay aan advisor u ahaa wasaaradda maaliyadda mashaariicda jubayl iyo yumbuc oo sanduuq la yidhaha public investment fund sanduuqa horumarista ee xukuumadda mashaariic 8 bilyan iyo 500 milyuuna iyaan anigu mas-uul ka ahaa oo markii la evaluate garaynayey iyo sidii loo fulinayay marka la tallaabo la fuliyay lacagta loogu sii daynayay Islamic Development Bankana waxaan madax ka ahaa wax la yidhaha sanduuq tadaamun alislaami waa solidarity fanka muslimka oo dowladaha muslimka intay isku tageen yidhi aynu bal wax faqriga lagu yareeyo aynu samayno 10 bilyuun sanduuqu yahay 10,000 milyuun sanduuqu si baa la sameeyey waa capitalka marka capitalkii lama wada gaadhin laakiin markaan joogay ilaa 3 bilyan iyuu marayay oo hore u soo socdo ay lacagtu soo galaysay marka taasaan directorka ahaa oo 56 waddan ee muslimka ah sidii mashaariicda faqriga yaraysa loogu siin lahaa ilaa 30 waddan oo adduunyada ka mid ah yaad ka soo shaqaysay marka loo eego intii aad joogtay banka adduunka iyo dee meelahan kale ee sida masalan banka islaamka adduunka iyo meelaha kale meeshii kuugu yaabka badnayd ama aad sulan karto waxbaad tartay xataa ama kuugu horreysay ama kuugu yaabka badnayd ama ugu burburka badnayd ee aad u muuqatay in dib loo dhisay maxaa ka mid ahaa xaggee bay ahayd horta halkeeba ugu horreyso shaqada ka bilowday iska dhaa ama waxa kale kaa yaan ku warsii wareerin tan kuu soo noqonayaa waa wanaagsan tahay tani ya shaqada waxaan ka bilaabay world banka qaybta la yidhaha IFC International Finance Corporation oo world banki baa dhowr qolo ah bankiga oo dowladaha waxsiiya IFC oo private sectorka waxsiiya iyo miiga Multilateral Investment Corporation oo ammaan gelisa ama inshuur garaysa wixii investment ee wadanada maalgelinta lagu sameynayo saddexdaas ahay marka IFC baan ku bilaabay IFC economist baan markaa u ahaa East and Southern Africa mashaariicdoodii waxaa haddii aan usoo noqday tii kale maxaa kugu yaab badnayd Sierra Leone ayaan tegay burburkii dabadeed markii gamcaha la sharay ee wadankii yacni dekan noqday mashaariic badan bay world bank ka wadeen kuwaasi dee iyagu istaageen laakiin waddan markaad sidaa u eegto haniimadda taalla quruxdiisa badiyo berriba ya ee togagu marayaan ee dhulku wada green yahay in haddana waxba laga beeranayn wax ku filan laga beeranayn macdantii adduunka oo dhan ilaahay dhigay diamondkii ya uu ka buuxo dee waxa la isku leeyahay kuwa ka mid ahaayeen macaadiin kale oo meelo kale laga helin baa ku jira macdan ruwi tight iyo waxay tahay mooye dhismaha la dhex geliyo malaha 70%
Sierra Leone buu yaallaa waxa weeye khaniimad waa ilaahay dhigay haddana waxa la wax yaallaa faqriga hargeysaa u ahayd Freetown hargeysaa u ahayd maxaan ku dhaha magaalo qurux badan way tahay oo dariiqo aanay lahayn oo weliba adduunku caawinayay ya taasi waxay ahayd shay in resources waddan ma dhisaan dad baa dhisa ya dad iyo cilmi iyo maamul yaa dhisa ya taasi waxay ahayd mid Yemen waxaan joogay waxaan ka ahaa resident representative 4 sano oo banka adduunka aan halkaa ka furay waa la isfahmi waayey oo World Bank waxay oran jireen Yementu serious maaha iyaguna World Bank waxay oran jireen Yementu waa dadaan waxba dhageysan oo aan odayaro caaqil u taliyo xafiiskii markaanu ka fureen niman kalena keenay iyaan dee si hagaagsan ula sheekaystay dhaqankiiba ku raacay idina way timid markaasaan ku yidhi wareedhaha arrinta idinku weyn waxa weeye 300 milyuun baa yaalla aad idinku leedihiin la idiin approve gareeyay idinka ood gambo kala soo bixi kari weydeen lianno mashruucdii la filayay inaad fulisaan baad fulin kari weydeen dee miyaynu ka istaarno mashaariicdaasii loo fulinayay ya tallaabo waxay noqotay 2 sanadood dabadood inay noqoto waddanka ugu activesan Middle East iyo North Africa mashaariicda soo galaysa ay qaadatay aaminaad iyo si hagaagsan in loo wada hadlo oo inta official loo soo fadhiisto aan la odhan aynu wax isku ogolaano kan oo lagu kala tago ya oo midna aanu sii daba raacin joogistuna waxbay ku tartay qof dee la joogo oo halkaasoo maalin walba is arkayaan oo xataa qaadkii aan ugu tegaya khayraadii iyo ra'iisul wasaarihii kanoo sheekooyin cajiiba ay ka sheekaynayaan ya dhaqankaagii baad dhinac kale ka heshay oo waxaan ku yidhi waddankayga haddaanan tegin waxaan dareemayaa inaan waddankayga joogo kale 1960kii waxaa isku biiray 2 qaybood oo ka mid ah dhulkii Soomaalida ee waagii hore la kala qaybiyay Somaliland oo Ingiriisku joogay iyo qaybtii Talyaanigu ka talin jiray markii jamciyadda qurumaha loo dhiibay ka bacdina 60kii loogu ballan qaaday in xorriyadda qaadanayso labadii dhinac 1 July 1960kii bay isu tageen dabcan adu waad yarayd laakiin arday baad ahayd wax kala garanayo oo lama odhan karo waad ka dhagalacayd marka dhinacyada laga eego tabashooyin baa jiray anaba ku garaadsanay oo qolada reer waqooyigu ay leeyihiin ama reer Somaliland maanaan helin saamigii ay ahayd inaanu ka helno dowladnimadii 60kii dhalatay sidoo aragtaa arrinta maxaad ka xasuusataa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa leeyahay dee aqoon badan yahay tan waana yaraa markii ay dhacday laakiin dee si wanaagsan baan u garanaya amin farxadii cid waliba dareemaysay oo doonayso gunudkii weeye Soomaaliya la isku keenayo geographically meel ka ballaaran ya waxa shayga markii aan dareemay mushkilada waxay ahayd markaan secondary ka soo baxnay ee la yidhi shaqana heli maysid scholarshipna heli maysid wax markale maahay ya xamar oo aanan weligay arag cid joogta aanan aqoon iyaan intaan gaari halkaa ka qaatay aan reer kula xamar baan tagay maxaad ka doonaysaa dee ama shaqo ama scholarship secondary ka dhamaystay taasaa u yaroo marka la yidhi waa inaad intaasoo kun cid waliba u soo socotaa si ay wax u helaan wixii waddankoogu ay xaq ugu lahaayeen ay u helaan markaa centralizationka iyo mushkiladu waxaan u malaynayaa ka bilaabantay meel kastaba laga soo qaaday xukunkii meel qura la isku wada keenay ya magaaladii Hargeysa ay noqotay dee magaalo qofkii wax doonaya inuu ka baxo ay tahay Somaliland waxaan sii xusuusanahay timacade oo yidhi haddaa sidii buul duqood daah loo rogay meeshii waxay laga feliyoon dhan ya marka dee waa la iskaga adkaysanaya laakiin mushkilad soo socoto oo wax walba meel iskugu geeyo oo nimankii abuuray isku tagga in la marginalize gareeyo dhinac loo dhigay
wax la qaybsan kari waayay qaybsan kari waayay inana dee aynu noqonay dadaan sii tashan oo maxaan ku leeyahay jibaduuni ka badato la isku dhiibay ileen haddii la sameynayo union xataa laba qof hadday isguursanayaan ya maxaa lagu meheriyaa la odhanayaa maxaa yaa waxa dhacaysa dee in la hadlo dhaf naga qaada ya marka in effect de inay tahay siday u dhacday si aan hagaagsanayn ahayd ya dee markii dambena almushkila military baa bay noqotay I think shayga ugu xumay ee waddankaa ka dhacay waa military qabsaday military meel uu qabsaday oo horumartay ma jirto nin loo tareen kariyay inuu wax dumiyo in la yidhaha wax dhis oo adigu tali qof kula hadlaana ma jiro ya afrikay soo martay waan arkaynay markii 69kii qabsadeen afrikadii kale kuwii military u qabsaday xagii ku dambeeyey Nigeria Ghana kan ya marka militarigiina dee waa waxa weeye shaqadiisa ta kale waxaba aan ku yar sameeyone haddii bini aadamka loo diido inay fikiraan oo ay ka faa'iidaystaan qaladaadkay sameeyeen kori maayaan ummad lagu yidhi hadli kari maysaan anaa idiin talinaya oo wax socialist la yidhaha waxay doontaba ahaatee halkaasaan idin marinaya qofkii aan marinayn jeelkaan geynaya dee waa la fadhiisiiyey koraankii haddii kale qaladaadka la sameeyaa laga faa'iidaysan lahaa electionkii iyo wixii mashaakilkii baa laga faa'iidaysan lahaa kontonkaa sannadood dee waxbaa soo kordhi lahaa waa la arreskareeyey aakhirataankiina tii markay burburteena meel laga soo qaadaa ma jirto so ya idinku markii aad masalan waxbarashada maraykan baad yaad heshay markaad secondary ka baxday saad ku hesheen wallaahi waxay ahayd alxamdulilah berigaa wax waliba tartan bay ahayd shaqada tartan baa lagu heli jiray scholarshipka tartan baa lagu heli jiray interviewska la qaadaa sax bay ahaayeen intii ugu ladnayd iyaa heshay elementaryga marka laga soo baxayo entrance exam inta la siinayo cidimay odhan jirin hebel baa ree hebel oo soo qaatay oo gacantaa la soo waday qof walba muqtanicuu ku ahaa intaa heshay ay ahaayeen intii ugu xanuunsanayd u shaqaystay ugu dadaalka badnayd wixii aan qaadka cuni jirin aan ordi jirin aan sigaarka cabbi jirin ee geedka la hoos fadhiyay buugooga markii laga soo baxay intermediate-ka secondaryga la imanayay secondary quraan jiray 50 qof baa laga qaadayay waddanka oo dhan عمود iyo sheekh ma عمود ma jirin عمود waa laga soo raaro sheekh baa la keenay عمود markaa VTC bay noqotay lagu baro macallimiinta lagu baro ha secondaryga sheekh sanadii 50 qof baa gali jiray waddanka oo dhan ka soo gali jiray haddana dadka galaya lama oran jirin hebel baa gacanta la qabtay hebel baa gacanta la qabtay markii tii laga tagayna scholarships kin saasoo kale oo imsa subject buu baas mareeyay grade-kii buu ku baas mareeyay imtixaankii laga qaaday SAT-gii siduu noqday interviewgii la qaaday siduu noqday marka TCE marka la gali jiro waxaan ma anaga ugu dambeeyay qolada de ingiriiska lagu soo sixi jiray ingiriiska xaggaas lagu soo sixi jiray dabeedna inta ugu sareysa scholarship loo diri jiray sax marka imtixaan kala dib leeyay ka qaaday mise sidii un bay u dhacday oo intii ugu sareysay jaamacadaha marka la gelayo yaa waliba jaamacadaha Mareykanku waa inaad imtixaan qaadataa scholastic aptitude test la yiraahdo oo sida loo qaaday annana qoomba waayo Mareykanku waxay imtixaanada markay qaadayaan essay ku siin maayaan waa intay ku siiyaan multiple choice waxay yiraahdaan wayna ugu cusbay haddana alxamdulillah waanakum sidii baan dowladda jaamacadaha ku galay sanada waxaan u maleynayaa 11 qof oo afar ay ahaayeen special program oo Afrika oo dhan ka dhaxeeyay oo Afrika oo dhan asba waa loo oran jiray way ka lacag badnayd way ka afar baan kaga tagnay ya oo marka Afrika oo dhan baanu galay oo wadan walba bar baa laga soo qaaday ta kale se wax Soomaaliya la siiyay todobada kale wax Soomaaliya la siiyay oo halka laga taltano دكتور عثمان سيدات المانتي طبعا قربها تشوفتي لقى بلابو marka laga eego 1996 markii militarigu ay qabsadeen
dalkii la odhan jiray Somali Republic xataa magacii way ka bedeleen oo Soomaaliya loo bixiyay Democratic Republic of Somalia marka waxay noqotay dee tala military iyo sidii aad sheegtay wada qura in la raaco oo la maro waxyaalo badan oo kala dhacay adigu adduunyada maad ahayn arday uun meel joogay adduunyada meelaha laga daawado ayaad shaqo ka bilowday aad nood ka shaqaysay oo ka mid yahay World Bank iyo waxa soo magaranaysa markaad u eegto waxyaabihii ka dhacay dhulka Soomaaliya ama dhulkii Somali Republic loo oran jiray mar waxa la yiraahdo horumar bay sameeyeen bili sanadii ugu horeeyay haddana dib bay u dhaceen seed u arkaysay aqoon-yahan ahaan ama dhaqaale ahaan ama yani siyaasiyan waa la garanayaa qof qurihii halkuu wada mariyo markay dictator noqoto waxa ka soo bixi kara laakiin dhaqaale ahaan wuu kabtay baa la oran jiray dhowrkii sanadood ee ugu horeeyay ma been baa mise waa run seed u aragtaa luuta I think marka hore inta hore waa run oo shayga ugu weyn waxa weeye markii afkii af Soomaaligii la qoray waxa ballaaratay dee wixii wax ku darsan jiray dhaqaalaha waddanka tacliintii way badatay ashyaa fara badan baa kordhay biduun shak laakiin wax marka meel center laga maamulo hore u socon kari mayso ceebteeda waayo waxay ku bilaabeen control ninkii beerta qodanayay in la yidhaha beerta waxaad la soo baxdo cid ka iibi qiimahana kaga iibi haddaad u baahatana isaga ka iibso qiimo ka sarreeyana kaga iibso marka wixii loo sameeyo centralization ee loo diido dadku inay dhaqaaqaan way kufaysaa waana kuftay 1977 dagaal baa ka dhacay geeska Afrika Ethiopia oo Haile Selassie wala riday qolo waxa qabsatay iyaduna sidii tii Soomaaliya military baa qabsaday ardaydii iyo wax kacay ummadii way weeqantay dabeedna waxa la yiraahdaa dawladda Maxamed Siyaad Barre intay ka faa'iideystay ay ciidamadeedii gelisay iyaduna oo istiri qaybtii Soomaalidu deganeyd de weligeed ba lagu taami jiray in dib loo soo celiyo soo qabso qolana waxay tiraahdaa may qabsanayna waynu ku burbureeyo de ruushkii oo xaggan la joogay unba xaggana tagay oo dabeedna talo xuma lagu baaba'ay haddii aad ka mid ahayd aqoon-yahankii Soomaalida ahayd dibadda joogay ama dusha ka arkayay sheekadaas sidee u dhacday ma la odhan karaa sabab bay u ahayd burburkii iyo baabi'ii ku dhacay dalkii la odhan jiray Somali Republic oo waxay ka mid ahayd waxyaabaha uu iishay dagaalkaasi shaki la'aan waa shaygii ugu weynaa burburka bilowgiisii shaygii ugu weynaa iyo ahaa taa waxaan filayaa dhaqaale dadku dhaqaalaha ma saaraan isha ma saaraan ta ugu weyna dhaqaalay ahayd dagaal baa la galay resources lama haysto lacagtii bay iska daabaceen waxaynu ku samaynaynaa lacag aynu daabacno dee lacag haddaad daabacdana way qiimo beelaysaa shilinkii ahaan jiray 6 shilin doolarka ahayd 6 shilin doolar suuqa madowna markay soo yar korodhay 10 bay ahayd doolarku hadda waa xataa dagaalkii markuu bilaabi doono de markii dambe waa tii kumaanka ka tagtay oo haddii aad iska daabacdo lacag aan sal lahayn completely wax walba way baabiinaysaa dhaqaalihii markaasaa dumistii bilaabantay IMF ta lafteedu ma la odhan karaa qayb bay ka haydo waxaan xasuustaa beri la yidhi sarif lacag bay iyadaa shuruud keentay oo tidhi devaluation ama shilinka hala qiimo rido dabeedna lacag baanu bixinaynaa wasaaraddii maaliyadda iyo shuqul baa la isla galay BBC-dan joogo markaa qolyaha ka sheekeeyaanu ahaan jiray sheekooyinka noocaas anuu dhaqaalayahan meehi laakiin adiga ah meel la odhan karin qoladaa qudheedu dhinac bay farta ka geliyeenoo
iyana qayb bay ku lahaayeen arrinkaad imika ka sheekeynaysa ee qiimo dhaca lacagta may qiimo dhacu wuu jiray iyagu waxay lahaayeen qiimo dhaca shayga ugu weyni waxa weeye qof dowladda u shaqeeya ama dowladda ku xidhani lacagtii wuxuu ku helayaa intii officialka ahayd intii afweyne soo xigtay ama la rabay inay rejiimka caawiyaan waxaa lagu siinayaa maybe $50 dadkii caadigiina waxay kumaanku marka waxay leeyihiin iyagu waxa la furo ka rasmiga la joojiyo alla isku keeno dabeeta dalabkii iyaa badanayo dee cid wali waxay doonaysaa $kii inay markaa qaadato si dadka loo siiyo fiqad waa in lacag meel la dhigaa la yidhaahdaa $kii ma dhammaanaye intanay taalaaye qiimihiisiina kii officialkee hore maahee waa kii suuqa madow iyuu joogaa markaa hore u socotay yowm biyowm bay ku kordhaysay dee iyagu waxay lahaayeen haddii lacag meel la dhigo dadku u siman yahay auction lagu sameeyo ya dadka laga xaraasho lacagta laga xaraasho stable bay noqonaysaa marka dambe way istaagaysaa dee maxaa dhacay nin ajnabi markuu ku yimaado kula taliyo sax ba ahaadee uu kaa tago adigu waxaad ku samaysaa si aad u fulisay bay ku xidhan tahay dee intii waxaa laga xaraasho dhowr la yaqaan marka arrintu halkeygii bay ka socotay mushkiladdu IMF-ka may ahayn mushkiladdu sida dowladdaasi u maamushay dhaqaalaha iyay ahayd oo dad lagu naas nuujinayay waxaa dhacay muddo yar ka bacdi markii dagaalka lagu guuldaraystay qolaa isku dayday inay afgembi samayso dabeedna xisbiye mucaarida yaa ka samaysmay oo aan xisbi ahayn laakiin ururo aad moodday inay gobollo isu raacsan yihiin oo maadaama aanay jirin hab dadku ay isku raacaan oo ururo banax banaan aan la ogolayn oo ay dee hal qura noqotay waxa weeyaan markii tii maxamed siyaad barre ay waddo qura raacday haddana jabhado waddo qura baa la furay waxaana markii ugu horreysay dhacday soomaali iyo xabashi dhinaca isku haya oo soomaali kala dilaya inay dhacdo taa qudheeda qoladii wax ka bilowdayna waad ka mid ahay dee markii dambe adiga qudhaadu SNM-ta inkastoo taa hore SSDF la odhan jiray oo qolo dee bilowda ay ahayd haddana yidhi war kan si kale wax laga qaadaya ma lehe waa gacanta loola tagaa ka waran sheekadaas horta waxaan dee waa la igaga sheekada waa la igaga khabiirsan yahay intaan se ogahay SNM-tan markii la abuuriyay Sacuudigan joogo waan ku jiray maxamed xaashiye baa ka mid ah dharkii markaa joogay arrinta ugu weyni waxay ahayd cudurkii inagu rejiimkaasi inagu beeray ee inagu cadaadiyey iyaynu moodnay inuu dawo inoo yahay qabiilada isagaa beeray wixii waddanku lahaayeen markii shuyuucinimadii iyo wixii beentii laga yimid reer baa wixii iska yeeshay cid walibana waa ujeedaa reerihii badh baa loogula dagaalamay reer ahaan oo waa tii xagga SSDF iyo majeerteen sidii loo galay teenii halkan ka dhacday ya markaa in effect inagii inaynu moodnay malja'a qura ee aynu haysanaa inuu qabiilo yahay dee way suurtoobi kartaa markaad ka baqanayo ka ordayso waraabe inaad god qabiilana ahaadee inaad gaso ood ku nasato laakiin inaynu taa xal moodno waa qalad qabiilo xal maaha sina uma noqon karto marka waxay dhacday 1988 waad ogtahay de wixii halkan ka dhacay balaayaa dhacday burbur baa dhacay si baan baa wax loo galay ummaddii intii badneed waxay u qaxeen dulcad ama dhulkan dee degaankii ku yaalay Ethiopia ay ka talinaysay intii kalena barabax bay noqotay wixii kalena adduunyada loo kala firdhay dagaal dee faraha lagaga gubtay baa ka dhacay
arladan ilaa ay keentay 1991 in haddana dib loo soo noqdo la yidhaaho war bal aan la soo noqonno 1960 halkii cajaladii in dib loo celiyo qola waxay tidhaahaa qoladan SNMT dagaalka gashay marka horeba saray doonayeen qola kale oo aan anu ka mid ahayna waxay yidhahaan inanu qaldanahay baa laga yaabaa iyaga laga goostay iyagu wax may goosan oo dee iyadoon waxba la weydiin baa xabar dowlad laga samaystay oo qoladii manifesta iyo waxaasaa ka mas-uula aqoon-yahan ahaan dagaalka iyo natiijadii uu magaranaysaa ka dhalatay iyo waxaa dambe ee magaranaysaa soo raac seemad u aragta bismi illahi raxmaan raxiim horta markii ay dhacday ee la burburiyey horta intii ka horreysayba dee waxa dadka lagu sameynayo wayna ogeyn waxa waddanka iigu dambeysay waan iiman jiray sanad walba 81 baa iigu dambeysay ya markii la sameeyey SNM 82 joojiyey inaan imaado ya weelbaaga markaan joogay fasaxa nala siiyo waxaan weydiisan jiray in la ii ogolaado waddan kale inaan tago waayo iyagaa kaa bixiya maaragtay kharashka aad ku tegeyso waddannada kale aan tegi jiray sida dadka loo gelayo maxaan ku dhahdaa dee yacni cabuudiyad u dhow ya markii laga qaxay halkan dulcad la tegey bishii Sebtembar 88 baan tegey ya aan tegey dulcadoodii reerkii baa joogoon ka soo rarayo meela geynayay markaad aragto sheekada lagaa sheekeeya waa mid gooniye ummaddii aada wada garanaysay sharafka wada lahayd oo qof walba shaarkiisii lasoo baxsaday oo taambuugyo garab fadhiya oo taambuugyadiina ku filaan waayeen dumarkii lagu xidheeyey raggiina barkood dibadda fadhiya hooyaday oo ku dulgubatay taambuug hortiisii sidaa u fadhidaan ugu tegay ya dee markaad aragto waxa ya yacni dadkan ma isku mid baynu nahay ya haddana se kolleyba in la fikiro oo optionska la eego caqligu shaqeeyo waa laygu qabsan malahay in la yidhaahdo meeshaba dee halkan baa iska timaado annagaa xukunne adigu taas waa sheeko gooniya laakiin in ay sida loo sameeyey way xaq ahayd markii lasoo noqday dadkii way tashadeen kol haddii dadka cod laga qaado istiftaah laga qaado fikraddu siday doontaba ahaatee dadkii hadal weeyey way hadleen constitution bay ku jirtaa dee meel laga geli karo laakiin haddana in la sameeyo options la eego scenarios adduunku hadduu sidan u dhaco adigoo taadii meel kuu taalo haddana ka fikir waxa kale iman kara waxaad kaga hortegi karto oo optionskaasi ay meel kuu yaalaan aan arrintan duuduubadka dhowr qof oo hoos u eegayona aanay noqon ee laga fikiro dadkana la wacyigeliyo ya scenarios waa scenariosun saasaa layna leeyahay halkaas aynoo taagantahay maxaynu taa ka yeela waa bes waxaa la yidhi hali waa dhudhub laba waa dhul lexdii saddexna waa dhul bannaan dhudhub inaad isgelisa maaha ya laakiin aan dhameeya si aan uun dadku hadduu hadlo oo yidhaha saasaan doonayaa bini aadankuna ay leeyihiin dadka iraadadiisa wax ku soconayaan dee waa taasi oo inaan laga gudbin haddana se inaad dhinac walba ka eegato adiga dartaa oonada dhin waa taydii waa taa ee tiraa war maxaa kuu daran aniga taasaa ii daran oo aad adduunkii kalena sidaa kusoo jiidan karto ya scenarios ya Dr. Cusmaan Sheekh Axmed waxaa dhacday dulcad markaad tagtay andii ku yar celiye waxaa laga yaabay adduunyada dad badan oo suxufiyiina tegay meesha marka xero qaxoonti bay moodayeen xeradii doolarka geeska Africa
haddaanan qaldanayn ayay muddo gaaban ku noqotay oo lagu sargooyo ma garanaysaa sicirka nairobi iyo addis ababa iyo muqdisho iyo jabuuti sicirku intuu dulcad ka joogo in subaxii lagu gooyo maxay ku dhalatay bay kula tahay intaas ma jirtay arrintaas dee waa sidaad sheegtay markaan tegey waxba may jirin oo dee markii la yimid unbay ahayd laakiin muddo gaaban iyay ku noqotay santarkii dhaqaalaha baaca mushtariga geeska africa ya ugu weynaa actually ay noqotay oo Ethiopia meel walba inta lasoo traileris lasoo kaxaysto alaabta laga qaadanayay oo cumladu sidaad sheegtay ay ahayd waxay taasi ina tusaysaa dadkeenu inuu yahay dad initiative leh shaatiriina shujaaciina wax bilaabi kara zero bay kaga soo bilaabeen iyagoon waxba sidan shaarkooga mooyaane oo muddo kooban ay ku sameeyeen tahay tiyo weliba ay ku dhex jiraan waddan shuyuuciya waddan shuyuuci oon u ogolayn dhaqdhaqaaq burbur baa kalaa xamar ka dhacaysna oo la mida kii ma garanaysa ama aan aada uga liidanin inkastoo kan dee uu kaga duwanaa in wax la ogaa ay tahay oo maca dayuurada dabada loo qabtay haddana dagaal faraha la isula tegay baa xamar ka dhacay dadka intii badnayd ba kuwii nairobi kale iyaguna islii ayaa iyana dulcad kala noqotay oo ilaa maanta markaad u eegto xagga kenya dhaqaale ahaan iyo hindidii haysan jirtay cidiba ka saartay ma kuu muuqataa dadka soomaalidu haddii la sii daayo inay noqon karaan dad wax qabsan kara oo inkaartan se ku dhacday ee had iyo jeer ma garanaysaa dhinaca u siidida maxay tahay waxaan u malaynayaa taade aad sheegtay baraaka miyay ahayd baraakadaasi wall street baa la odhan jiray the african wall street tiyoo dagaal ku dhacaya haddana wax walba ka helaysa oo ay barteen sida looga duso maxaan ku dhahaa sidaasaa soo dhacay oo bakaarihi xamarka bakaarihi ha isley waan tegey beri hore 1991 baan tegey dee waxay ahayd ghetto way ka hooseysay ghetto oo xashiishku biyaha xashiishkii ay suuqa marayeen oo shashada yaryar ay ku haysteen qolada Soomaalidu way isbedeshay marka waxa la leeyahay waa meelaha ugu dhaqdhaqaaqa badan leh ya oo balaayiin dollar ayaa la dee waa tan entrepreneurialku waa mid Soomaali ka dhaxaysa markaynu se inagu isku nimaadno waxba ina dabra okay haddaynu ya waxa dhacday sheeko ay dawladdan Somaliland bilowday baa jirta oo intii ka horeysay 25 sano imika Somaliland oo dhowbay ahayd gooni sutaagay intii ka dambeysay marka waagii hore iyo bahalayda iyo taagnido xidheen cid bini aadan oo kale oo la hadlayna ma jirto oo aanu kala hadlayno Somaliland iyo qadiyadeeda iyo jiritaankeedii waxeeda laakiin qoladan dawladdan dambe albaabkay furtay waxay tii qoladii xamar oo la hadlayna hadalaa la furay London 2002 alif ama 2012 baa la isugu tagay markii dambena qolo Turki la yiraahdo iyana tiri qaybteedan maayo waxaad moodaa imika inay meel u socon laadahay aqoonyahan baa tahay dhaqaalayahan baa tahay adduunyadaad ka war haysaa Somaliland darbaad ee tahay oo dabcan dalka waad ku dhalato dadka waad la joogtaa maxay kuula muuqataa ma garanaysaa wada hadalkaas ma Somaliland baa qaldan Soomaaliya qaldan ma adduunyadan kale qaldan maxaa halkee wax ka qaldan bismillaahir rahmaanir rahiim horta siyaasadda waa la igaga weyn yahay laakiin qof dareemaya wadankiisii wuxuu yahay halkan kana meel kula laga wada galay meel badan baa laga wada galaa halkii waatan ku sheegayay Sacuudiga SNM markii bilowgeygii aan joogay markii damba diri dhaba loo soo raro nimankii militariga ee baxay la yiri de London ka socon maysa halkan la keeno Mareykanka markaan ku noqonay afweyne dagaalkiisii halkaas aan ku gal Allah yarxamo Ibrahim Meygaago de nin zaciima oo wadan ka dhintay ahaa
yaan joogay waanu wada shaqaynaynay jariidad horizon la yidhaaho snm winka ahayd baanu soo saari jiray congresska maraykanka iyaanu campaigns ka qaadaynay oo ay aakhritaankii ugu sabab noqotay in mucaawanadii laga jaro afweyne marka ayaa u tegay Congress. axmed xuseen ciise halkan joogiyey anigaa u tagnay nimanka lajnada qaybisa congresska lacagta oo nin lobbyista oo aanu isbaranay ayaa noo geeyey salkana waxaanu kasoo dhiganay nimankii xignaa cabdi ismaaciil yoonis iyo saleemaan nuux iyo inamadii ufo oo la yidhi niman scientista oo intellectualisa iyo staff qof walba qof baa markaa ku xidhnaa jaamicadahoogii baanu galoo ardaydii baa kacday jaamicadaha ya aakhritaankii waa sheeko dheer siday u go'day lagaga jaray oo congresska pass mariyay resolutionka markii la qorayay waanu dul joognay waabanu loo qoray bad markaa dagaalka dhinac walba waa laga soo galay ya ilaahay way naga qaaday markaa cadowgii isku taaguna dee there was no choice ma jirin sida laynoo galay iyo siday ahayd ilaa iminka ruuxadeeda dee maxaa lala hadlaa laakiin guri gubanaya haddaad ku noqoto waad ku gubanaysaa ya so in effect sidaynu nahay dee waa taasoo waynu soo dhisanay from zero tion adduunku waxba ina siimaynu soo dhisanay mustaqbalka halkee baa looga socdaa haddaba weeyi waa in la fikiraa waa in la yidhaha optionskaygu waa maxay ya dee xamar wuxuu ogeysata inaad ku sugto maaha halka oo tiraa anigu waan isku filanahay waa inaad kasii tabaabushaysataa ya waa inaad adduunku siduu u hadlayo ula hadashaa waayo adduunku dee meel bay gaadheen waxbay goosteen dhinac bay jiraan ya waxaa markaa daruuriya inaad optioniskuun eegto wada hadalkuna optionskaasuu ka mid yahay wada hadal dhibaato maaha arrintu waa maxaad ku wada hadlaysaan halkeebaad ka bilaabaysaan sideed u wada hadlaysaan ciddaad maxaad ka rajaynaysaa inay ka soo baxaan kuwaad la hadlaysaa legitimate ma yihiin ma yihiin kuwo iyagu goostay mowqifkoogii turki mowqifkeegu waa cadya ya dad mowqifkooga goostay miyay yihiin mise waa dad muxaayida oo danuun raba oo loo marka wada hadalku waa okay laakiin waa inay ka weynaataa tag oo la soo hadal oo maxaan ku dhaha inaguna inaynu ogaano xaggaynu ku socono okay oday baad tahay aqoon-yahan baad tahay sidaad sheegayso adduunyadana in badan baad kasoo shaqaysay over 30 ilaa 30 sano 30 dal in ka badan ilaa 40 sanana waxaasaad ka shaqaynaysay muddaad imika nala joogtay oo masalan inkastoo aniga quleeda dibadda ka yimid haddana xogaal badan baa tahay oo rag badan oo saaxiiba tihiina way jiraan oo way joogaan mushkiladana in la daawado un maaha oo de markaaba adigoo baanka adduun ka shaqeyno meel kale ka shaqeynaya haddana hawl kale ka qayb qaadatay inaad ma garanayso imikana waad soo farabaxday oo dee intaad shaqeynaysayna waad shaqaysay waxaad adduunyada kala taraysayna waad tartay aqoon waxaad soo baraysay waad soo baratay inaad wax uga faa'iideyso kuwii aada la dhalatayna waa lagaa sugaya waa lagaba maarmaan waxaa laga yaabaa inaan ciddii wax kugu fali lahayd adigoo kale inaanay muuqanin markaad dhinac ka eegto oo kolleyba ay u muuqato in dadka qaar yidhaahaan war dadkan aqoon-yahanka aan lacagna inooga baahnay ee adduunyada ka soo shaqaystay ee mushaharba kaa doonin ee aqoonta cilmiga a leh ee hebel iyo hebel iyo hebel iyo leh halkan u dhashay ee fasaxa ku imanaya soo qabsada oo intaad meel yar u samaysaan oo ay ku fikiraan ama tala ka qaata ma kuu muuqataa in lagama maarmaan ay tahay adiga iyo rag kale oo badan oo aqaano noociinaahi haddii cid idin yeedhata aada weydeen inaad idinku isu tagtaan oo tidhaahaan war maxaynu talo iyo tusaale ku kordhin karaa dalkan iyo dadkan oo xataa hadday qaldan yihiin aada odhan karta war ka daaya sidan waad ku qaldan tihiin xaggan u baydha
wallaahi waad ku taagan tahay waad ku taagan tahay qof walba waxaa lagu leeyahay amaah dadka iyagaa fursadda wanaagsan helay waxaanu fursaddaa ku helnay waddanka free baa waxna lagu soo baray badanka iyaga haddii aan free ahayna wax yaroo macno lahayn waa dalkaagii waa dadkaagii waa identitygaagii markaad kaba timaado maxaan ku dhaha responsibilityga dee meesha qura ee aada is odhanayso waan nasanayaa haddaan midho ku beero ya boqolaal wadano fara badan oo ashyaa fara badan markaad ka tagto dee waad ka tagtay wixii aad samaynaysa halkan marka mas-uuliyad baa annagana saaran inaanu wixii aanu samayn karno samayno dadka diasporaha jooga waddanka wax weyn bay ku tareen oo dee wixii lagu nabadgalay taasay ahayd markaa lacaguun maaha ee in wixii qof walba dibadda ka soo bartay uu ka soo ogaaday inuu ku soo celiyo oo caqli la keeno waayo horumarku ma aha lacag iyo resources ma aha waa caqli iyo dad shaqeeya weeye ya adduunkuna wuxuu isku kala dhaafay ma aha waddankana resources badan iyo waddankana macdani taala iyo waddankana waa dadku maskax wanaagsan ma wataa cilmi ma wataa mase shaqaynaya oo ma dhididaya oo ma soconaya ku mid maleeya ya dee waa nalooga baahan yahay waananu wixii aanu samayn karno waanu samayn doonaa ya waa kan iyo kan iyo kan la odhan maayo arrintuna maaha xukunka qaybgal ya xukun haddii uu qofka qaybgalo ama mas-uuliyad qaato dee waad meel baad ku xidhnaanaysaa wasiir ku-xigeen reebelaba waxay doontaba ahaatee wasiir ku-xigeen adigoo weel bank ka soo shaqeeyo intaasoo sannadood 40 sano dhadhow dhaqaalaha adduunka maamulayay ayaa markaa halka timaado lagu dhahay qolobaa tahay jilib yaroo reerka lagu dhahay wasiir ku-xigeenkii reeb markaa qof dee ka baxsan oo si objective u sameeyay waa loo baahan yahay qof qodhina wax samayn kari maayo an iyo 5 kale samayn kari mayno inaanu isku nimaadno oonu isqabsanno oo aanu dabeetana la qabsano dadkii gudaha waayo gudaha haddii aan maxaan ku dhaha wax ka dhicin qof dibadda ka yimid waxba samayn kari maayo marka in gamcihii isqabsadaan oo loo sameeyo sidaa 3 baase ina haysta oo ilaa laga baxo carqaladaha waxa weeyaan silsiladii nagu xidhan oo aynaan dhaqaaqi karin ilaa laynaga furan maayo waa qabiil waa qaad waa quruncun corruption saddexduba way ka xun yihiin 10 sano horteed way ka xun yihiin 20 sanadood horteed dhinac walba way gashay ilaa 3daas si la yidhaa horumar uu dhib badnaanaya barnaamijkii xusuus reeb oo aanu ku wareysanaynay doctor cusmaan sheekh axmed nuur oo sidaan ka sheekeeyey waayo aragnimo ballaadhan u leh adduunyada dhaqaalaheedana sina aqoon ahaana u bartay farsamo ahaana ka soo shaqeeyey oo marti noogu ahaa barnaamijkan intaas ayuu ku dhan yahay sidaa iyo qaybo kale oo barnaamijyadan ka mid a oo aynu mar kale ku kulanno